meeshaan waxaa imaadan aniga 3 saac markaan ilmaha iyo odaga soo afbilaabo waxaas ilaahay ii dhiibo ee sababta waxa ilaahay ku dhiibana ma helaysid ma ogtahay maareynta nolosha qoyska ma aha wax fudud marka laga hadlayo in qof haweenay ay soo dhiciso qutul daruuriga qoys dhan ma ahan wax sahlan inaad ka shaqeyso dhagax si aad u hesho nolol maalmeedka waliba adigoo ah qof haween ah haweenkan halkan ay si joogto ah u yimaadaan si ay u qabsadaan shaqadooda maalinlaha ah waxay yimaadaan aroor waliba goobtan iyaguna qabta shaqadan oo aan fududeyn kuna qasabtay duruufta heerka nolosha qoyskooda ama Faaduma Xalana Xaashi iyo Maryam Maxamed Cumar waxay halkan ka biilaan 2 qoys oo kala kooban 8 ilaa 6 qoys waxaan ugu tagay inaan kaga warano tusna bulshada daruufaan iyo kuwa la midka ah waxaan isku dayo hawshan balse anigu dareemay culayskeeda ama Faaduma Xalana Xaashi ayaa ii sheegtay in labada loor ee dhagaxa markay soo saaraan mid kamid ah uu leeyahay qofka dhulka iska leh rafaadkaasi dheer iyo la qaybsiga xoogooda kama helaan dheef badan ee waxay ku iibiyaan 25,000 shilinka Soomaaliya una dhiganta $1 10 loor hadii bixiyo 5 ana iskale 5 usa iskale saasan sharka kulna xoogaygan sharka kuna waa bixinaa usa dhulka iskale 5 loor hadii bixiyo 2 bar usuga 2 bar aniga 2 hadii bixiyo 1 usuga 1 aniga saas waay wallahi filnaan ilaahay laga helaa wuxuu ilaahay ku siiyo leelgu saabira maahana adiga hadda diragta iyo baahida waa asagtaan maalinkan ilaahay wax iga siiyo badan waa kaas maalinka kaleentana rabbiga subxaana qaadir leh aan shukro u ah joogtaan ah meel kale oo weecdo male ana bajiranahay ma sheegin ninka suuqaan inta leeb usugu lagu gadaa nin wax dhisanaya imaanaya loorki $1 waay $1 waay biriga haday badato laba la qodaa ama 3 la qodaa 1 ibaran leeyahay 1 ibarna ninka dhulka iska laha iskale waxay sheegtay inay jeclaan lahayd fursad shaqo abuur ah oo dhaanta nolosha dhagaxa ah wallaahi alxamdulillah shukr fursadii aan helo suuq waa ka ganacsi lahaay gaadiid ii shaqeey hadii la helo wiilal waa ii joogan waxay ka shaqeeyaan mal wiilashiga iigu shaqeey lahayd gaadiid hadii la wiilashiga iigu shaqeey lahayd lacag hadii ilay siiyo waxaan ku leeyahay suuqan ka ganacsi lahaay anoo fadhiyo aan nolol jeeg heli lahaay Mama Faaduma iyo Maryam Maxamed Cumar waxa saaxiibo ka dhigay shaqadan duruufta bida iyaduna waxay iyaga sheekaysay duruufaha bida hawshan did ruux aan ka biila 2 loor aan ka qodaa maalintii meeshan 1 loor ninka iskale oo beerta leh 1 loorna aniga iskale 25 taas kuna ilmaha aan ugu biishtaa koomba galeeya loo soo beega koomba galeeya loo soo beega garoor iyo cagaar loo soo gadaa aloo siina waa go'aan adag oo u baahan karti dheeraad ah inaad maareyso nolol qoys dhan ah haddana adigu ka shaqeynaya dhagaxa dhulka ku jira oo aad ku soo saarto gacmahaada balse way go'aansadeen habeenkan wayna sameeyeen Yusni Maxamed Axmed Hirshabeelle TV Jowhar